habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka daqiiqadaha wararka bisha waa Sebtembar sanadka 2023 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah maxaa laga yeelayaa maxaabiistii militariga Soomaaliland laga qabtay ee ku jira gacanta maamulka SSC Qaatumo maamulkayagu wuxuu yeelan doonaa waax garsoor gacanta lagu hayaa marka uu noo dhismaa maxkamadaha ay san geyn doona lagu maxkamadayn doona hadii la ka dhigo laascaanood nadiifin ayaa la wadaa kadib 8 bilood oo burbur madfac qax iyo rafaadba ay ku jireen shacabka magaaladaasi maxamuud xaashi oo kamid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn Soomaaliland si fog ayuu uga hadlay arrimaha dhex yaala laascaanood iyo Hargeysa xilliyadii dagaalku uu bil socday waxaan kula taliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu magaalada laascaanood ciidanka Soomaaliland ka saaro in shacbigii ka qaxay barakacay ee banaanada waran lagu soo celiyay magaaladana laga daayay in la dumiyo waxaan u arkayay dan umadeed dawladda Soomaaliya oo qoraal ay soo saartay ku sheegtay in la dilay horjoogayaal al-shabaab ka tirsan hay'adda ka hortagga hagjirnimadana waxay sheegtay 107 qof oo shabaab ah inay isa soo dhiibeen khilaafka dhex yaala madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa reero isku laynaya ismaamulka Wajeer gaar ahaan deegaanka Banaanay iyo dabcan xubinteennii suugaanta aan ku bilaabay madaxweynaha SSC Qaatumo ayaa waxa uu ka warramaya maxaabiista ay gacanta ku hayaan lagana qabtay militariga Soomaaliland maxaa laga yeelayaa maxayse wajihi doonaan raggaasi iyaga ah maxkamadayntooda uma jeelan dhamaantood maxkamadayna laakiin waxa jira xubno maxaabiista kamid ah oo laga yaabo adigoo warbaahinta ka shaqeynay iyo anigoo goobjoog ka ah dhibaatada waddanka ka dhacaysay inaynu aqbali karno inay dambiilayaal dagaal yihiin maxaabiista ku sifaysan dambiilayaal dagaal inay yihiin maxkamadda aan saarayno saan kuu sheegay maamulkayagu wuxuu yeelan doonaa waax garsoor gacanta lagu hayaa marka uu noo dhismaa maxkamadaha ay san geyn doona lagu maxkamadayn doona hadii la ka dhigo intaanan ka bixin wararka SSC Qaatumo laascaanood 8 bilood baa madfac iyo qaxba uu ka socday hadda magaalada nadiifin baa lagu wadaa oo shacabka magaalada ayaa u istaagay in magaalada laga qaado wax walba oo qashin iyo qashir ahaa oo dagaaladii magaaladaasi ku socday ay reebeen hadda oo saacadu tahay 6:00 subaxnimo baa shaqaalihii iyo bulshadii ka shaqeynaysay nadaafadda magaalada laascaanood iyo agabkii gaadiidkii macdaadkii ciidamadii sharaa'igii ay ku dhaqaaqayaan mas'uuliyiintii degmada xildhibaanadii maamulka SSC Qaatumo iyo dhammaan qaybihi kala duwanada bulshada ay ku dhaqaaqayaan ololaha aan ugu magac darnay muwaadin nadiif magaaladaada oo aan ku nadiifinayno qashinkii iyo wax allaale wixii raadkii uu reebay dagaaladu oo aan ku nadiifinayno wax allaale wixii astaan ay Soomaaliland kaga tagtay magaalada ololahaasi waxa loogu magac daray muwaadin nadiif magaalada waa hagaag hay'adda ka hortagga hagjirnimada ayaa sheegaysa in 107 qof tiro gaaraysa oo shabaab ah ay isa soo dhiibeen haddaba warkan maxaa ka jira xarunta qaran ee ka hortagga iyo la dagaalanka fikradaha xagjirka ah waxay ku wargelinaysaa bulshada Soomaaliyeed in ay isu soo dhiibeen bilihii Juulaay iyo Agoosto isu soo dhiibayaal gaaraya 107 xubnood oo hore uga tirsanaa kooxaha khawaarijta kana tanaasulay kamid ahaanshihii kooxdaas xubnaha isu soo dhiibay waxay iska soo kala dhiibeen deegaanada kale ah dawlad goboleedka Hirshabeelle dawlad goboleedka Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed xubnaha isu soo dhiibay waxay isugu jiraan caruur la asgareeyay oo aad da'doodu u yar tahay dad dhalinyaro ah oo kamid ahaa jira dagaalyahanada kooxdaas waxaa ku jira haween iyo horjoogayaal sarsare oo ka tirsanaa kooxdaas dhammaan dadka isu soo dhiibay waxay mari doonaan habraaca uu qorayo xeerka isu soo dhiibayaasha ama dadka isu soo dhiibay dawladda ee ka soo baxay kana tanaasulay
fikradaha xagjirka ah ee ay faafiyaan kooxaha khawaarijka ah. waxaa muuqanaysa bilihii lasoo dhaafay inuu aad u kordhayo nambarka isu soo dhiibayaasha weliba heerarka sarsare oo aan ula jeedo horjoogayaasha kooxda. waa hagaag qoraal ay soo saartay dowladda soomaaliyana waxaa lagu sheegay dhinaca kale in 3 qof oo horjoogayaasha shabaab ka mid ah lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ku yaalla galgaduud ma jiro warar kale oo madax bannaan oo arrinkani xaqiijinaya. maxamuud xaashi oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu miisaanka culus somalilan ayaa maanta maruu hadlayey wuxuu si fog oga hadlay khilaafka dhex yaalla laascaanood iyo hargeysa. maxamuud xaashi oo lagu yaqaana hadalkiisa cadcaddaan ayaa sidan sheegay. xilliyadii dagaalku uu bil socday waxaan kula taliyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu magaalada laascaanood ciidanka somalilan ka saaro in shacbigii ka qaxay ee barakacay ee bannaanada wadhan lagu soo celiyo magaaladeena laga daayo in la dumiyo. waxaanu arkayey dan ummadeed inaan colaaddu fogaan baanu arkayey. ma garwaaqsan nasiib darro taladaa iyo kuwa dad kaleba siiyeen. wakhtiyo aanu dalladda ururada isugu nimi si badheedha ayaan aragtidaa u cabbiray anigoo damcay inaan ku qanciyo madaxdii ururada. nasiib darro waanu ku kala aragti duwanaanay waanu ku qaybsannay waxay taageeray iyo wixii ka soo horjeedayba. maanta waxaan jecelahay hadalkaygu inuu u bato dhinaca shishe ee awoowayaashay iyo gacalkay. colaadda ka dhacday gobolka sool waxay ahayd ilduuf siyaasi ah iyo ayaan darro labada dhinacba. ma aaminsanay inuu dhinacna fayow yahay oo beri yahay. soomaalidu waxaa jira halkudhig afka qalaad ah there are 3 sides to every story your side their side and the right side. sheeko waliba waxay leedahay 3 dacal dhinacaaga iyo dhinaca kaa soo horjeeda iyo dhinaca saxa ah. markaa ma qabo in dhinacna ka fayow yahay. waa laga xisaabtami doonaa taariikhduna ma qarin doonto gefafka gaboodfalka halkaa ka dhacay. ummadda soomaaliyeed isuma kala xigto sida ay isu kala abtirsiimo xigto. hase yeeshee ummadda soomaaliyeed waxay isu kala xigtaa siday isu kala ood xigto. waa hagaag suugaantii ayaa soo socotay iyo weliba magaalada cadaado oo raashin karsan loogu diyaarinayo ciidanka dagaalka ku jira balse haatan xaggaa iyo ismaamulka wajeer aan aadno. deegaano badan oo dhulka soomaalida ah soomaali ayaa isku laynaysa. reerahan waa deris intooda badanna way wada dhasheen. colaadan meelo badan ayay saamaysay. deegaanka banaaney ayaa ka mid ah meelaha reerahan wada dhashay ee isku laynayaan. dad maaragtay isla shaqaysta isla ganacsada guur dhex mareen walaale ah oo isku jiraan oo degaan isku degan waay. annagana reer wajeer haddaan nahay qabiil ma qabna qabiilkayna waa reer wajeer. meel walba oo jooga qafka haddaas east jooga haddaas west jooga haddaas south jooga haddaas north jooga waa un reer wajeer qabiil kale oon kala qabna ma laha. annagana dad muslimiin aan nahay mar walba waxaa la rabaa markaa in ammaanka aad loo ilaaliyo. horumar waxaan ku gaari karnaa haddii inteenan oo walaalaha reer wajeer maanta degan aan isqabsanno oo walaalnimada nin walba meeshiisaas ka ilaaliyo. waxaan aaminsan yahay horumarkaan doonayn inaan maaragtay hadafkaan doonayn aan gaari karin. waxaan u diraynaa tacsiir ehelkii iyo qaraabadii maaragtay ay dadkii ka geeriyoodeen. dadka geeriyoodana ilaahay janna ha ka wareer baan leenahay. midda labaad waan ogsoonnahay ammaanka waa shay muhiim hawa. reer wajeer waan ogsoonnahay marxaladihiin soo marnay abaaro baa la soo maray ilaahayna maaragtay khayraad baas nooga bedelay. khayraadka asaga inaan ka faa'iidaysano labaan loo baahan yahay. waqti hadda maaragtay rabsho iyo dagaal aan maaragtay in as bilowda
waa laga fiican yahay markan waxaan jeclaan lahayn oon ka baryeynina dadkii isku daaqa ahay isku deegaan ahay isla dhashay isku diinta ahay in wixii dhacay la soo afjara oo haddatan laga shaqeeyo sidii maaragtay awal hore la isku dhaqan jiray oo la isku daaqi jiray in la soo celiyo oo waxaan hadda dhacay aan maaragtay xasidnimo kala iyo maaragtay waa la dilay hal la dila iyo argudisho in la joojiyo wahagaag gulufka dagaalka ee shabaabka ka dhanka ah meelo badan ayaa laga wadaa xabad oo keliya ma ahan oo haweenkii ayaa raashin u karinaya ciidanka furimaha hore jooga waa kan guddoomiyaha Cadaado oo arrinkaasi ka hadlaya diyaar garowga dagaalka lagula jiro cadawga al-shabaab ee khawaarijta ah waxaan halkaan nagu yimidna soo gaaray gabdho walaalaheena oo xamar naga soo gaaray dhuusamareebna soo maray shaqo wanaagsan ka soo qabtay halkaan noogu yimid gabdhahaas oo nagala qayb qaadanaya oo diyaar garowga dagaalkaas iyo sidii ciidamada jihaadka ku jira loogu diyaarin lahaa cuntada qalalan ama dry foodka waxaan xalay iyo shalay halkaan shirar aan kala go' lahayn ku yeelanay waxaana abaabulnay degmada iyo waxyaheeda kala duwan wax walbana waxay qaadatay qaybteedii iyo qismigii maaragtay lagu qoray waxaan rajaynaynaa sidaas aan maanta u daahfurnay inay hawsha noogu sii socon doonto waxaa hawsha gacanta noogu haya oo hawshaan howlwadeen noogu ah budlig u ah ururka haweenka degmada Cadaado oo ay guddoomiyaha iyo hogaaminayaan xubnaha kaleeto ee guddiga fulinta waxaan sidoo kale halkaan nagu soo gaaray oo asagana ayadana aan u mahad celinaynaa wasiiraddeena haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiirad Ubax oo ayadana hawshaan nagalana qayb qaadanaysa naguna dhiirigelinaysa inaan hawshaas aan maxaa tiraahdaay sida habsamada leh u socoto ay ka sii hormarto waxaan rabnaa inaan halkaan ka cadeyno in aan hawshaas hadda maanta aan bilownay aysan maanta ahayn doonin laakiin ilaa barnaamijka galmudug oo ka soo afjarmo ay jikadaasi noo shidnaan doonto haddii alla idmo qof walba oo dadka dhulkan ka soo jeeda ama reer galmudug guud ahaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan sidii cadowga la iskaga celin lahaa qawl iyo ficil iyo maal iyo muruq intaba inay kaga qayb qaataan ayaan ugu baaqaynaa aad iyo aad u mahadsantiin inaad jacayl u muujinno oon u mahadcelinno dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyey si aan horumar u gaarno waa ay fududahay adigoo isticmaalaya World Remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaanaad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya teleefankaaga way fududahay soo maaha ma tirtiro abaalkaaga ismaadiyo wanaagan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii suugaanta barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka caawa intaasa inoo joogo waad ku mahadsantihiin daawashadiinna tan iyo kulankeenna kan xiga jimco wanaagsan faa'iidooyinka adeegga ibs send money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibs bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibs global
xawlaadaha ebesa mastercard ijwa mastercard banking service adeegyada bangiga ebesa goor kasta iyo goob kasta